iyadoo looga dabaaldegayo guud ahaan dunida dacaladeeda farxadda ciidul fitriga ayaa shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota oo ay Soomaalidu qurbuhu u baahan tahay laga tukaday goobo badan goobaha Soomaalida sida aadka ah u soo camileen salaada ciida ayaa waxa kamid ahaa masaajidka Daarul Culuum oo ku yaala magaalada Simbool ee magaalada madaxda gobolka Minnesota madaxda masaajidka Daarul Culuum oo ah goob hore u ahaan jirtay kaniisad ay ku cibaadaystaan dadka diimaha kala haysta ee ku nool magaalada Simbool balse ay Soomaalidu gateen kana dhigeen Baytullah ayaa ii sheegay ahmiyadda ay leedahay in khayrka laga shaqeeyo maanta waa maalin weyn waa maalin farxadeed waa maalin dadka muslimiinta ah badidooda ay tukanayaan ama wada tukanayaan waxayna u dabaaldegayaan ciidaha labada waaweyn oo muslimiintu ay leeyihiin oo asalka diiniga ah labadaas mid kamid ay u dabaaldegayaan waana Ciid Fidrigi hadda waxaan taaganahay frontiga Daarul Culuum Islamic Center oo Simbool baan taaganahay taariikh ahaan waqti dheer ma gelinayno laakiin waxaan rabaa in yar inaan soo koobo halkan waxay ahaan jirtay marka la fiiriyo 1959 iyo dagaalkii labaad oo adduunka iyo mar waxay ahaan jirtay kaniisadda ugu weyn ee state-kan Simbool ilaahay wuxuu doortay inuu noqoto masjidka ugu weyn dadka Soomaalida special ay isticmaalaan in macnaha ma dhahayo masjid ahaan waa midka ugu weyn North America oo dhan muuqaal ahaan laakiin salaada meesha lagu tukado iyo dhismooyinka waxaa la yiraahdaa waa masjidka labaad ee muuqaal ahaan ugu weyn laakiin meesha lagu tukado waa masjid ahaan ugu weyn waxaana la ku tukadaa la yiraahdaa 2000 ilaa 2500 qaar kamid ah dadkii Soomaaliyeed oo warbaahinta qaranka la hadlayay iyagoo ku sugan goobta ayaa dareenkooda cabiraya iyagoo hambaliyay iyo bogaadin hawada u marinaya dhammaan shacabka Soomaaliyeed ehelkoodii iyo asxaabtoodii Layla waay magacayga halka waxaa ka salaamaya dhammaan muslimiinta meel walba dunida ka joogaan gaar ahaan hooyaday aabahay hooyada ayaan Ismaaciil Buule aabahay Aadan Axmed adeerkay Xasan dhammaan caruurtiisa dhammaan muslimiinta meel walba joogan halka ka salaamaya bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga Xaliim Axmed Buule la yiraahdaa meeshan waxa waaye maanta waxaan nimid ciidii masaajidkii muxuu ahay Daarul Culuum Simbool Minneapolis taaniidan bogaanta waxaan u dirayaa aabahay Axmed Buxul walaalahay Sheekh Usmaan Axmed Aadan Axmed Xasan Axmed Saadiye Axmed ehelkayga oo dhan intii macnaha muxuu ahay taqaan magacayga muuqayga asxaabteeda aad baan idin salaamayaa ciid mubaarak ayaan idin leeyahay maanta waa maalin ciid ah waxaan ku suganahay masaajidka Daarul Culuum Islamic Center ee magaalada Minneapolis dhammaan waxaan hambaliyo u dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta iyo dal kasta oo ay ku nool yihiin khaas ahaan waxaan hambaliyo khaas u dirayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ama guud ahaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed idinka iyo xaasaskiina taliyaalkiina waxaan dhammaan idin rajaynayaa caafimaad iyo cibaadada inuu Ilaahay idinka aqbalo waxaan idin rajaynayaa sanadkiisa kala guul iyo caafimaad iyo baraare waxaan u hambaliyeenayaa dhammaan dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waxaanan ugu hambaliyeenayaa si khaas ah ciidamada u suurtageliyay jiritaanka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed biidnillaahi baari sanadkiisa kalena waan ka sii fiicnaan doonaa horey baan u sii dhaqaaqi doonaa waxaan rajaynayaa sanadkiisa kale inaan kula ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan ka soo mid ahaan jiray saraakiishiisii waqtiga dheer ku qaadatay jiida hore ee difaaca qaybta 6aad qaybta 12aad inaan kala qayb galo oo sanadkiisa kale kula ciido caasimadii hooyadii ummadda Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho hambaliyo kullu caam wa antum bikhair assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Cabdi Cali Daahir waxa ku noolahay magaalada Minneapolis gaar ahaan Simbool waxaan farxadan aad u weyn aan kala qaybsanaynaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan leenahay kullu caam wa antum bikhair dhammaan ummadda muslimiinta meel walba adduunka joogtiin waxaan leenahay ciid wanaagsan ciidan ciideeda waxaan idin rajaynaynaa kuwii nabad iyo barwaaqo iyo bashbash ku gaar Allah idin ka dhigo ummadda islaamka waxaan leeyahay magaalada Simbool gobolka Minnesota ka tirsan waxaan maanta ummadda islaamka leeyahay kullu caam wa antum bikhair ciid wanaagsan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ehelkayga oo ku kala nool dalka Mareykanka UK Muqdisho gaar ahaan waxaan aad iyo aad u salaamayaa hooyaday macaan oo ku nool Muqdisho Aamina Yuusuf Arax
ciid wanaagsan hooyo waana mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmat bismillaahi raxmaan raxiim magacay waa sadiiq cabdixaaji waxaan jeclahay maanta halkan inaan hambalyo uga daro dhammaan ummadda islaamka ah meel kastoo joogaan dunida gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bilkhayr waxaan halkan uga faa'iidaysanayaa dhammaan ehladeeda iyo qaraabadeyda oo kala jooga dunida dacaladeeda waxaan leeyahay ciid wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي واسمير سيادة خلنا حكونا ولدالك أمريكا وحا أمد الصومالي درايا عيد مبارك عيدة كلاتين إلينا قارسيو وحا إلينا هي ملكستو جوكتين إنا كو عيدين وحا آدو سلامة عيدة أو صومالي كونو الكلي ولا لهد كل all of us والسلام معايا خير إرجونا عيدة كليلها نقارسيو ما وحندها أمد مسلمين عيد مبارك وحا كسلامة هذا أمد walba Soomaali marka hore waan salaamaya marka labaad hooyaday aabahay dhamaan eedayaashay ee ku nool dalka Soomaaliya eedaday macaana dhamaan waan salaamaya waxaan dhahaa asaasi nabadgelyo waxaan rajaynaynaa sanadkiisa kale insha Allah inaan dalkeena hooy ku ciidno waxaan halka ka salaamayaa walaalahayga oo joogo Afrika insha Allah inaan sanadka dambe isla ciidno oo islaam weyga u xoreeyaan ilaahay waxaan u weydiinaynaa dambi dhaaf gidigeenna waxaan alla weydiisanaynaa ilaahay inuu noo dambi dhaafo miidiya aad iyo aad bay u mahadsan yihiin Cabdi Xakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka